Waxa uu yidhi, xaaskayga aad ayaan u jeclahay, mana jecli inaan la guursado. Muddo ayaanan isqabnaa. Qisadan waxa ay tahay wiil dhalinyaro ah waxa uu guursaday gabar uu aad u jeclaa. Muddo ayayna isqabeen. Waxna Ilaahay dhexdooda kama beerin oo ubad ah. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu aaday masaajidka asagoo aad u murugaysan. Waxa uu arkay nin wadaad oo meel fadhiyo. Ninkii wadaadka wuxuu ku yidhi, wiilkaygiiyow, maxaad xilligan u imaaday masaajidka? Ma ahane xilli salaad. Wejigaana waxaa ka muuqdo murug aad u fara badan. Gabdhihii waxay arki waayeen wiil Waxa soo uu doonto wiilkii, ama wiil soo raadsado ama wiil sida usoo adeer fadhiista waxaan guriga. isqabnaa gabar. Markaasaa Waxaan gabadha ka guursaday mid muddo waxay ka hor. tiri, bal Gabaraan salliga aad u nabiga jeclaa. sallallahu calayhi wasallam Gabadhii faa'iidooyin badan ayaa lagu sheegay. Ilaahay dhexdeena wax u Bal wada maan tijaabino kama gabdhihii ay la beerin. tashatay. Muddana waa Marka waxay isqabnaa. dhaheen bal waayahay. Mana jecli inaan la Salliga nabiga guursado. Mana rabi inaan furo. gabdhaha waa ay Markaas wuxuu ku shaqaynayeen. yidhi, markaas Midii ay wuxuu la yidhi wiilkii, joogtay. Mid ayadii ay isbitaal la walbana waan joogtay. tagnay. Kuwii Dhakhtar walbana shaqaynaya waan ka shaqadii ayaa loo quursanay. kordhisay. Marka sidaas awgeed ayaan u Cabaar murugaysanahay. marka ay wadeen salliga nabiga sallallahu Ninkii calayhi wuxuu ku yidhi, wasallam kaali soo dhawow. waxay heleen Kaali soo dhawow agteyda soo faa'iidooyin fara fadhiiso. badan oo ka mid ah. Waxaan ku Gabdhihii siinayaa daawo. shaqaynaya in lasoo doonto nin Adiga iyo wanaagsan xaaskaaga insha oo Allah aad diin ku iyo caafimaad akhlaaq doontiin. ay u dhan tahay iyo maal. Wiilkii waa uu naxay. Wuxuu yidhi, Markii la ma runbaa? guursaday gabadhii kale ku Haa, xigtay sidoo kale. adiga iyo Gabadhii weyneyd balse xaaskaaga. lama guursan waxay la joogtay Haddaad ayeeyded. daawadan aniga aan idin sii Markaas aad waxay tiri sidii la waxaan rabay aad u badsaday qaadatiin. salliga nabiga sallallahu calayhi wasallam Ilaahay wuxuu si idin aan siinayaa ayeeydii ugu waxaad ku tago faraxdaan. eedaday oo meel kale jirto ay shaqay u aaday. Wiilkii wuxuu yidhi, Sidan adeer salliga ii nabiga sheeg, sallallahu calayhi wasallam waa akhrinay. meel walba In ay tahay anigaa u doonanay, eedadeydii anigaana ku shaqadeedii dhaqaaqay. way u soo dhammaatay Ee ii sheeg wadankii ayay ku soo daawada. laabatay. Waxa ay meeshii boos ay ka iibsatay. Waxa uu ku Gurigii yidhi, ayeeydii u dhoweyd guri u dhow ayay boos ka iibsatay habeenkii sida inta anigana aan ayeeydeydii markaad ugu seexataan tagay eedadeydii. salaada subax hal sac ka hor soo Kadib kaca. anigana waxa ay tiri waxaan 30 daqiiqo u cabaar yar horey shaqaystaba waxa ay waxaad soo doonay nin ka dhigtiin wanaagsan. salaatuleyl. Kadib waan 30 guursaday kalena alxamdulillaah. Ilaahay dambi dhaaf weydiisto Waan oo dhaqanahay. istighfaarta badiya. Marka Markaasaa salliga wiilkii u nabiga istaagay. kurbada waa uu kaa qaadaa haddaad Wuxuu yidhi, badsatid. Rajo adeer walba waa aad mahadsan leedahayna tahay. Ilaahayna waa uu Ninkii kuu wuxuu ku fidinayaa. yidhi, Dembigaaga haddaad waa sidaas uu dhaafay. samaysaan Xamdi walba aad adduunka Ilaahay ku wuxuu idin leedahayna siinaa waxaad ku faraxdiin Ilaahay waa uu wax ku walba. siinayaa. Marka Wiilkii waa uu kacay. Dhanka aan xaaskiisa u soo badsanno aaday salliga guriga nabiga xaggeedii. sallallahu calayhi wasallam sifa ay Gurigii nolosheena ayuu noogu yimid. hagaagto Waxa uu ku yidhi mida adduun xaaskiisa, iyo mida aakhiro cajiiday, kaalay iyo mida aakhiro. war aad Mararka u qaar waxaa farxad jiro leh ayaan inoo hayay. hami iyo hadaf Daawadii aan aniga iyo leenahay adiga aan ku bogsoon dadka lahayn qaarna aysan ku aan faraxsanayn. Ilaahay dhexdeena uu ubadka Adigana beeri aad lahaa rajaynaysa hamigaas inaad ayaan inoo gaartid waad hayay. gaaraysaa dad dadaalkeeda iyo badsiisa. Gabadhii xaaskiisii ahayd way ay faraxday. Agtiisa Haddii aad ayay si soo daacad ah fadhiisatay. si niyad ah aad u Waxay ku qabanaysid tiri, dadka qaarna ii sheeg kuma maxay tahay faraxsan. daawada xaggee waaye xaggeese u Horta doonanaa. markaad tahay ruux daacad ah Wuxuu ku yidhi, balse aadan habeenkii inta ogeyn aanan la cadowgaaga gaarin ka fiirso. Qof walba oo kuu dhow wuxuu salaada noqon subax karaa cadowgaaga. hal sac ka hor ayaan soo kacaynaa. Waxaad kaloo ka fogaataa 30 daqiiqo u horey qofkan waxaan ka 40 dhiganaynaa dabeecadood leh. salaatuleyl. 30 kalena Kan waxaan koowaad ka oo dhiganaynaa istighfaar Ilaahay aan dambi dhaaf kuyeesayo weydiisanaynaa. saaxiibkaaga ahaado Gabadhii qaraabadaada waxay ahaado tiri, qof kuu dhow waayahay. ahaado Asagana wuxuu ku qof yidhi, goormee kuyeesaayo ayaan bilaabaynaa. Gabadhii xaaskiisa waxay ku oo tiri, aanan ku caawa arkin qof ayaan muhiim ah. bilaabaynaa. Kan labaad qof ku isticmaalayo Markii habeenkii la dantiisa oo gaaray idil dantaada ka ma hormarin. jirto wax la Kasta dhahayo ruux walba oo dantiisa fiirsanayo laakiin qofku isticmaalay danihiisa inuu in kuu ma guto oo dhalayo. kaa tago sida inuu kaa Waayo dhigto mar jaranjaradii walba uu dad Ilaahay hamigiisa isku ku xirto fuuli lahaa. arrintaada Markuu Ilaahay uu hamigiisa ku gaaro toosin. inuu Amuurahaaga Ilaahay adiga uu aad ku jaranjaradii toosin. Wax walba Ilaahay aad wuu u ku noqotid hagaajin. qofkaasna ka fogow. Marka sidaa tahay sidaas ay Mida tahay saddexaad qofka beenta aan ku kuu sheego dadaalno mar inaan Ilaahay mar dambi dhaaf walba qofka waxa weydiisano. beenta kuu sheego ma wanaagsana. Sifa Ka riyo fogow walba iyo isagana. rajo walba aan leenahay Midka si afaraad Ilaahay
uu noogu rumeeyo ayagoo kheyr qabaan. qofka Asalaamu aan ku calaykum xishmeyneynin ku arkeynin waraxmatullaahi qofni. wabarakaatu. Marka waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti dambe oo xiiso leh. Dad nagu cusub tahay please na soo booqo like noo saar waxaad awoodid sida iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.